Madaxwayne ku-xigeenka Somaliland ayaa wuxuu magaalada Berbera ka dhagax dhigay mashruuca sifaynta shidaalka iyo dhalinta korontada leydhka waxaana mashruucan iska kaashanaya dawladaha Somaliland iyo dawladda dalka Singapore. Munaasabad si heersara loo soo agaasimay oo lagu qabtay magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland, maamulka gobolka Saaxil, kuwa degmada Berbera, mas'uuliyiinta dekedda Berbera iyo marti sharaf kale. Ugu horeyntina waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin, barasaabka gobolka Saaxil Axmed Cismaan Xasan iyo maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi waxayna soo dhaweeyeen mashruucani. Berbera waxaan ku soo dhaweynaynaa mid cad iyo mid madow islaam iyo gaal wuxuu doonaa ha noqdo cid maal gashato oo magaalada wax ka bedeshaan ku soo dhaweynaa baan maanta mashruucan furaynaa waa mashruuc dalkeena iyo geeska Afrikaba ugu ku ah waa tuujinta shidaalka qaydin oo runtii aad iyo aad u balaaran sidoo sheegay Cabdilaahi dekedu waxa weeye albaabka laga soo galo Somaliland runtii cid kasta oo maal gashanaysa jamhuuriyadda Somaliland waan soo dhaweynaynaa waana la qabanaynaa wax kasta oo ay u baahan yihiin waxaan leenahay ku soo dhawaada gaar ahaan shirkaddan aan maanta joogno aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa waxaanu leenahay waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo maxaan ku dhahay dalka iyaga maal gashanaysa waa soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo gobolka maxaan ku dhahday maalgashi iyo horumar ku soo kordhinaysa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada gobolkii horumarinta waxaanu diyaar u nahay ka gobol ahaan cid kasta oo noo timaado wax qabanaysa inaanu garab istaagno oo aan habeen iyo maalinba maxaan ku dhahday garab istaagno oo shaqada qaybta annaguna aan ku lahayn aan maxaan ku dhahay waajibaadkeega. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo shirkadaha fulinaya mashruucani waxayna ka warrameen mashruucani iyo ahmiyadda uu leeyahay qaranka Somaliland. 是索马里兰共和国和新加坡共和国历史上值得铭记的一天，由我们新加坡新丝路能源有限公司投资建设的索马里兰博贝拉重油发电机500万吨年产。gaar ahaan waxaan ka codsanayaa reer Berbera inay soo dhaweeyaan mashruuc kasta oo ummadana dan u ah iyagana dan waa waxa la yidhi dheri ninkii u dhowaa lafaha kala baxa halkan baa horta marka hore ay ka bilaabi doontaa haddaanu ahay weliba shirkadda imika leydhka halkan power baa ku jira aad iyo aad baan u soo dhaweynaa idinkoo og inaanu nahay shirkadda ugu jaban ee leydh bixisa maanta dalka mashruucan oil refinery-ga iyo tamartu waxa weeyaan waa mashaariicda ugu ballaaran ee maanta bariga Afrika ama ahaan ama wadamada sub-Sahara ka hooseeya laga maalgeliyay saynu halkan ku arkayno insha Allah waxay soo saari doonaan 1.5 million metric ton per year sanadka koobaad waxa dambana waxay gaari doontaa ilaa 5 million metric ton sidoo kale waxa farxad u ah guud ahaan Somaliland iyo gaar ahaan gobolka Saaxil waxay baahi badan u qabtay laba shay koow waxa ka ahaa tamarta maanta waxay soo saari doonaan 78 megawatt oo tamara ay soo saari doonaan taasina waxaas leeyahay gobolka Saaxil wuxuu noqon doonaa sida Ankara oo sida Istanbul oo kale runtii maanta waa maalin aad u qiimo iyo qaayab weyn leh farxad bay ii tahay maanta inay taagan tahay Somaliland maalin nin kasto hadal iska dhurayaaba uu ka samro oo ay dhaqaaqday oo ay halkii la doonayay gaadhay Afrika oo dhan waxaan noqonaynaa wadankii saddexaad ee warshad laga taago shidaal sifaysa macnihii de waxa la filayay iyo waxaan noqonay aad u kala weyn waxaan mahadinayaa DB World waxay soo jiidatay maalgashiyaal kale oo fara badan. ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxaana uu ka warramay mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay Somaliland. maanta runtii waa maalin aad iyo aad u weyn waa maalin Somaliland maalmaha
sida weyn loo xuso ama ku suntaanaysa taariikhda noqon doonta insha Allah waa maalin maalgelin weyn u soo hoyatay Somaliland oo noqonaysa maalgelintii labaad ee DB World ku xigta qiimahaan ama u dhigmaysa ama ku dhawaanaysa ama ka baasada doonto waxaan arkaynaa inay u soo xidheen dalkayga maalgashadaan maalgashigaasina qiimaha ugu weyn ama faa'iidada ugu weyn waxa helaya shacabka reer Somaliland iyo waa ganacsi oo iyagu ku dhow rabaan laakiin maanta cidda ugu baahi badan maalgashiga ugu baahi badan maanta waa inaga oo reer Somaliland aad iyo aad baan soo dhaweynaa runtii waa Cabdirasaaq Qaasin jaamac telefishinka Sam News magaalada Berbera